بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn inta aynaan bilaabin mowduuca aynu maanta falanqeynayno waxaad chance ii siisaan in aan kusoo dhaweeyo channelkan cid kasta oo subscribe gareysay oo kusoo biirtay weegiina soo dhaafay. sidoo kale waxaan ka codsanayaa daawadayaasha in ay subscribe gareeyaan channelkan inta aan subscribe gareyn inta aanay muuqaalkan daawan ka hor si ay ula socdaan oo ay uga faa'iideystaan mawaadiicda horta leh ee aanu channelkan soo dhigno iyagoo subscribe gareynaya halka hoose ay subscribe ku taalo. haddii aynu eegno jawaabaha ay bixiyeen haweenku su'aasha la xiriirta waa maxay shayga aad ugu baahi badan tihiin ee aad uga baahan tihiin ninkiinu. arrintii koowaad ee ay ku bilaabeen waxay ahayd mas'uuliyad qaadis. boqolkiiba 95 haweenkii buuxiyey su'aalihii la weydiinayay waxa ay doorteen in ninka shayga ugu horeeya ee aadka uga baahan yihiin ay tahay in mas'uuliyadooda qaadi kara. haddaba nasiib xumo waxaa jirta rag fara badan oo aan gurigooda ka warhaynin mas'uuliyad ay qaadaan iska daaya. mas'uuliyad darradu waa mid ka mid ah waxyaabaha qoyska burburiya. sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah ninku si kasta oo uu mashquulsan yahay inuu u sameeyo saacado gaar ah guriga si uu u xisaabiyo ugana soo baxo mas'uuliyadda ay ilaahay saaran. si ay meesha u jirto isla xisaabtan la xiriirta isaga iyo ubadkiisa iyo xaaskiisa. haweenku waxay ugu jecel yihiin in mas'uuliyadda sideeda uga soo baxa, in carruurtiisa la xisaabtamo, in habeenkii markuu guriga yimaado weydiiyo wixii carruurtooda maanta u soo qabsoomay, laylisadii loo diriyay si ay uga shaqeeyeen, ka caawiyo waxbarashada iyo waxyaabaha ku adag. marka waa muhiim inuu ninku mas'uuliyadda qoyska sideeda uga soo baxo. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawade. waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iidaysatay. ha ilaawin inaad sii subscribe gareyso channelkan. waa inoo wiigga dambe ee muuqaal dambe oo xiiso leh.